haddii aad rabto inaad table of contents u samayso dokumentiga adigoo adeegsanaya MS Word waxaa marka hore muhiim ah inaad dokumentiga headings u samayso haddii uusan headings lahayn kadib waxaad tagaysaa menu kore taabka ay references ku qoran tahay kadibna waxaad dooranaysaa optionkan ay table of contents ku qoran tahay kadib waxaa kuu soo baxaya optiono dhowr ah haddii aad rabto inaad dokumentiga u samayso table of contents oo automatic ah waxaad dooranaysaa optionka koowaad ama midka labaad oo ay ku qoran tahay automatic table haddii aad rabto inaad manual ahaan table of contents u samayso waxaad dooranaysaa optionkan ay manual table ku qoran tahay tusaale ahaan aniga waxaan doonayaa inaan sameeyo table of contents oo automatic ah sidaa darteeda waxaan dooranayaa optionkan ay automatic table 1 ku qoran tahay kadibna saad u jeedo wuxuu si automatic ah kugu sameynayaa table of contents oo ku base garaysan headingska uu dokumentigaaga leeyahay haddii aad contentiga dokumentiga aad isbedel ku samayso oo aad rabto inaad update ku samayso table of contentiga waxaad tagaysaa table of contentiga kadibna waxaad dooranaysaa ama aad kal ku siinaysaa buttonkan ay update table ku qoran tahay kadibna waxaad dooranaysaa update entire table kadibna waxaad leedahay okay markaad tiraahdo wuxuu update kugu sameynayaa dhammaan table of contentska dokumentigaaga